الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حمدا لله، إلهي باكم هذينينا صلاة الظهر جماعة naga soo qayb galiyay. Culimada masaajidka ayaa naga dalabtay kelmad inaan sheegno. Salaadii duhur markaan ka baxnayna kulligaan wacdi baa laynoo jeediyay haddaan wax ku qaadanayno. wacdi dhammaystiran. wacdigaasi muxuu ahaa? janaazaan ku tukannay, salaat aljanaaza xaadira. qof walaalkeena ayaa meydkiisii intoo la soo geliyey halkaa aan ku tukannay, deedna waa la qaaday. kafaa bilmowti waacida, waana waxa kugu filan waa geerida. wacdi waxaa kugu filan waa meydkaa aad arkaysid. اغدوا فإنا راحون أو روحوا فإنا غادون، موعظة بليغة وغفلة سريعة، يذهب الأول فالأول ويبقى الآخر لا حلم له. أبو ذر الغفاري الله رأى النقدين ayaa janaasada marka meyd uu arkabu odhan jiray: la caraaba, annaguna waan ka soo daba kallihi doonaa, ama la kallaha buu odhan jiray, annaguna galabta umaan ka daba imani doonaayoo ka soo daba caraabi doonaaye. mawcidatan baliiqa waa waana xeel dheer weeyaan. wagaflatan sariica, adoo ku talagelina geeridu way kuu imanaysaa. yadhab alأwalu faاlأwal, midba midkii uu ka horreeyey buu aakhirada uga horraynayaa. ajal baa loo dhintaayo xanuunna looma dhinto, gaajana looma dhinto, xabadna looma dhinto. waxa loo dhimanayaa waa ajal weeyaan, waa ajal. lan tamuuta nafsun xataa tastakmila aakhira risqihaa. nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa, nafna ma dhimanayso adduunyada ka bixi mayso ilaa arsaaqadeeda inta u dambaysay dhammaystirata mooyaane. meydka aan ku tukannay baa inoogu filan wacdi haddaan dadku ay wax ku qaadanayaan maanta. waa la socdaa. xaggee loo socdaa? meeshii runta ahayd baa loo socdaa, meeshii runta ahayd. kullu nafsin daa'iqatu اlmowt wainamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaamah faman zuxzixa can الnaari waudkhila اljannata faqad faaz wama alxayaaةu اddunya ilaa mataacu اlguruur. ilaahay baa inoo sheegay naf walba geerida waa dhadhamin baa ilaahay yidhi, waa dhadhamin.
waxaad duubaysaan iska daayo dhegaysta uun ha ciyaaloobina halkan wacdi waayaan waxa laga hadlaya waa wacdi waxa lagugu baraarujinaya waa aakhiradaadii waxa lagugu baraarujinaya waa hadafkii adduunyada lagu keenay waxa lagu sheegaya lagu tilmaamaya waa meeshaad u socotay runta ahayd weeyaan marka qalbi wax weelaya allah ina siiyo naf walba baa ilaahay leeyahay geerida way dhadhamin camalkaad adduunyada ku soo shaqaysayna aakhira laynaga abaalmarin doonaa halkan wixii adduunyada aad ku hadlaysay waa la qoraayey waxaad samaynaysay waa la qoraayey maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid bini aadanka afkiisa hadal kama soo dhaco ilaa waa la qorayaa wawudica alkitaabu wajii'a biاnnabiyiina waashuhadaa maalinka qiyaamaha kitaabkaa la soo dhigi doonaa kitaabka maxaa ku qoran maalintii aad qaan gaadhay ilaa naftu ay kaa baxaysay wixii aad eegaysay wixii aad cuntay waxaad ku hadlaysay waxaad dhegaysanaysay meeshaad tagtay saad u socotay wixii oo dhan baa lagu soo qorayaa lagu hordhigi doona qiyaamaha iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyawma calayka xasiiba ilaahay baa ku odhan doonaa addoonkan oo kitaabkaaga adigu akhriso halka ula baxo adigu akhriso adigaana isku filana cid ku xisaabisaba uma baahnide adiga unbaa miisaanka isa saaraya oo isa soo caddayni doonaa ma naar baad u qalantaa mise jannaad u qalantaa faman zuxzixa can الnaari waudkhila aljannata faqad faaz ilaahay baa yidhi qofka naar laga badbaadiyey ee janno la geliyey kaasaa liibaane baa ilaahay yidhi xaqiiqadii kaasaa liibaane naar allah inaga badbaadiso aamiin dhahada jannadana allah ina geliyo allahu akbar daci اlayaama tafcalu ma tashaa waطib nafsa ida xakama alqaضاء walaa tajzac ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء maalin baa iman habeen baa iman kulayl baa iman qabow baa iman nolol baa iman geeri baa iman cabsi baa iman nabadgelyaa iman faqri baa iman barwaaqaa iman waa nidaam ilaahay adduunyada ugu talagalay waxaas in mar cabsi timaada mar barwaaqa timaada mar nabad la helaa mar la bukooda mar la caafimaada mar la dhashaa mar la dhintaa in ay dhalataa in ay dhimataa in fuqaro noqotaa in aghniye noqotaa undur kayfa fadalnaa bacdahum calaa bacdin walalaakhiratu akbaru darajaatin wa akbaru tafdiila eeg baa lagu leeyahay bini aadamka saan u kala sarraysiinay laakiin waxaa fadli badan baa ilaahay yidhi aakhiro darajaadka aakhira ninka hele baa fadli weyn helay walaalayaal daar alimtixaan baan ku jirnaa maxaan ku jirnaa daar alikhtibaar marka nolosha ilaahay baa kugu deeqay dhimashadana ilaahay baa kugu xakumay ogow meeshaad doontana joog waa dhiman maalintii lagu qoray inaad dhimato unbaad dhiman 120 habeen caloosha hooyo ilmuhu markuu ku jiraa malag loo soo dhiibaa ruuxda markaasuu ku afuufaa markaasuu malagaasi 4 buu u qoraa buu nebigu yidhi 4 buu qorayaa qofka ma labbaa ma dhidig baa habeenkaabaa la qori buu rasuulku yidhi ma shaqi naar ku dambaynaya mise waa saciid janno galaya habeenkaabaa la qori buu rasuulku yidhi fama risqu adduunka intuu joogo muxuu quudkiisu noqonaya habeenkaabaa la qori fama alajalu halkuu ku dhiman oo halkee lagu duugi habeenkaasaa la qoraa buu rasuulku yidhi marka waa dhimashaad u dhalatay waa inaad tidhaahdaa aniga haddaan dhinto ma rabbigay oo iga raallayaan dhimanaya mise ilaahay oo ii cadhoonayaan dhimanaya nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam siiradiisa noloshiisao dhan waxaan ka fahmaynaa meesha muuminku adduunyadu maaha meesha muuminku ku raaxaysanayo muuminku meeshuu ku raaxaysanaya waa jannada weeyaan meeshuu muuminku ku raaxaysanaya waa jannada الدنيا سجن المؤمن
وجنة الكافر بو نبي قولي الدنيا نيكا مؤمنك الجيل بيوتها الجيل نيكا الجيل كجرا اختيار ما له حرية ما هيستو لكن نيكا الجيل كجرا هم يجيس وين وامحي قور ما جيلك اللي يجيس يدين دونا قور ما جيلك كبحا dadka jeelasha ku jira hami kala ma leh tijaarad ku hamini maayaan oo guri dhismihiisa ku hamini maayaan oo ganacsi ku hamini maayaan oo dhoof iyo guur ku hamini maayaan hamiga ugu weyn qofka jeel ku xidhan waa goorma jeelka ka baxa uu saadarteed buu nabigu leeyahay adduunyada muuminka waa jeelkiisi waa jeel maxaa loo jeedaa adduunka inta qofka muuminku uu joogo معناها حريتيسي sidoo doona uma socon karayo waxa uu adduunyadan doona inuu ku sameeyo ma sameyn karayo waayo shariicadu qofka muuminka leeyahay shariicad oo arag ilaahay baa ku siiyay hadana aragaaga awaamir buu leeyahay awaamir araga awaamirtu leeyahay waa maxay waxa eeg baa laga yiri waxaan hayeegi ma shariicadu ku leedahay arabka ilaahay baa ku siiyay shariicadu waxay ku leedahay waxa ku hadal waxaan ku hadlin bay ku leedahay maqalka ilaahay baa ku siiyay shariicadu waxay ku leedahay waxa maqal waxana maqlin bay ku leedahay caloosha ilaahay baa ku siiyay waxaasi waa xalaal cun bay ku leedahay shariicadu waxana waa xaraan ha cunin bay ku leedahay socodka ilaahay baa ku siiyay shariicadu sidaa u socod bay ku leedahay sidaana ha u socon bay shariicadu ku leedahay wala tamshi fil ardi maraha sidaa mutakabbiriinta ha u socon شريعتها كلها سيدي أسعوا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرام بابا إلهي سيدي مؤمنين تسعنا واسدي بالغفلة دي معصية لقوها يهدي صومران أيكم ماموسا وكرامي سبع دافان با إلهي شقا كو درسان معيان وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم أحكامت عنده إليه إنك بصرك وأحكام بولي أحكام دي سوا محي وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم مسكيت قد حديد ماها وحا قضوا البصر كلا قاعد دون أيو مساجد قد بدا مرقاد وقب حدا الله دوني عندها قينا اللابت وحي محرمات إلهي كحرمي أردن عندها قهكو إيجن لكن عندها محاكو إيج لقايري أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج صمدا كو اقبل لغايدي وآيات كان إلهي كو ايغو إلهي كو قرو سيدا قيل إلهي أبو رفيري سيدا بورها إلهي أبو رفيري سيدا بد الله أبو رفيري سيدا عرك الله جوجي فيري سيدا مخلوق الله أبو رفيري آيات كان إلهي كو اقبل لغايدو عبرو ايغ موياني عندها كان أذيكو ملي هيدا واحد وانتنات كو ايغ تحر أمتي marka muuminkii maqalkii bay noqotay inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaa'ika kana anhu mas'uula walla isweydiin doona maqalkii waa lagu weydiin oo aragii waa lagu weydiin maalinka qiyaamaha qof walba la wareysan doona fabashir ibad alladhina يستمعون القول بايلهي يستمعون القول فيتبعون أحسنه هذا الكوناكسن إذا مقشان لغو جديي فعل كوناكسن شريعته وقشا إن هذا رعدا لغو جديي هذا الكحون شريعته إنكرتين أدكت هذا كله قيستين لغو موقله لكن إنك وحن لنا ما أنت اختيار بان له خاصة اللي يردين مركات هذا روحها هذا قيسن وروحنا داونا الشريعة ما أقول اختيار بان له اختيار بان له مالك القيامة وحاتر على إلهي وأنه اختيار بان له هذا حكم البادسي يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون من هم الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين اللهم اجعلنا آمين هذا يا عبادي
banka qiyaama maalintan la joogo ee qof walba gargaar iyo gurmad uu sugayo ayaa xagga ilaahay waxaa ka iman doona iclaan ogeysiis oo la oran doonaa yaa cibaadii addoommahaygiyow laa khawfun calaykum alyawma walaa antum taxzanuun maanta ininka korkiin cabsi iyo murug midna ma saarno allah inaga dhiga kuwaas maalintee waa maalinka banka qiyaamo la joogo يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وحير ما أنت ضدك أدون قرن كي يبيوك قيلسي بنك قيامة كورما مالك قيامها كورما حالده سينو قدونتا maalinka qofku gargaar uu baahan yahay gurmadu uu baahan yahay ayaa xagga sare iclaan baa ka imanaya oo la odhanayaa addoommihii ilaahay maanta iyaga dushooda cabsiya murugi ma saarno man hum waa kuwee aladiina aamanuu biaayaatina wa kaanuu muslimiin waa kuwii adduunyada markay joogeen ilaahay bay rumaysnaayeen aayaadka ilaahay bay rumaysnaayeen janna inay jirtay garanayeen naari inay jirtay garanayeen xisaab inay dambaysay garanayeen imtixaanka adduunka inuu dhammaanayay garanayeen laakiin imtixaanka runtu aakhira inuu dhacaya bay garanayeen dadna adduunyadii bay ka soo sahay qaateen ilaahay bay soo raalli geliyeen kuwa muslimiinoo toosan bay ahaayeenoo ilaahay u hoggaansan bay ahaayeen maxaa markaa lagu odhan doonaa udkhuluu ljannata antum waaswaajukum tuxbaruun yutaafu calayhim bisaxaafin min dahabin waakwaabin wa fiiha maa tashtahiihi alanfus wataladu alacyunu wa antum fiiha khaaliduun jannadaa loogu baaqayaa ayaa kaloo odhan doonaa ininka maanta kuwa cabsoonaya ininka ma aha waayo adduunkii baad ilaahay ka soo cabsateen ininka abaalkiinu maanta waa janno allah inaga dhiga kuwaas qulu amiin dhahada adduunyadan waa daaru tacab baan joognaa daaru lcanaa daaru libtixaan weeyaan adduunyadu waa imtixaan mar waa cabsi mar waa geeri mar waa bugtaan mar waa faqri mar waa abaar mar waa barwaaqo mar waad farxi mar waad murugoon daci اlayaama tafcalu ma tashaa waطib nafsa idaa xakama alqaضاء walaa tajzac lixaadiثaة اllayaali fama lixawaadiث الdunya baqaaء maalmahan adduunyada ee axwaashu ay la socoto ha eegin ha argagixine adu waxaad haysataa ilaahay xadhigiisa hayso amarka ilaahay hayso sunnaha nebi maxamed hayso inaad dhimato ayaad u dhalatee inaad noolaato uma dhalan jannadaadii halkan maaha qofka mu'minka jannadiisu aakhiro weeyaan wixii ilaahay ku keenana ku raalli noqo ka faqriga loo qadaray faqrigiisa waa inuu ku raalli noqdaa ka caafimaadka la siiyey caafimaadka waa inuu ku raalli noqdaa ka awlaadda la siiyey awlaadda ilaahay waa inuu ugu shukriyaa ka awlaadda laga qabtay awlaad la'aanta waa inuu ilaahay ugu shukriyaa ka nabadgelyada la siiyey nabadgelyada waa ilaahay inuu ku gartaa ka cabsida lagu imtixaamay cabsida waa inaad ilaahay kaga cabsataa ka mas-uulka laga dhigay mas-uuliyadda ilaahay waa inuu kaga baqaa ka mas-uulka laga yahayna marxaladdaad ku jirta adiguna ilaahay ku garoo kaga baq bas noloshan adduunyadu wax daa'imaysa ma aha mayd baan ku tukannay beritoole ninkana waa laynagu tukan ogow marka jannadeenni halkan maaha jannadeennu way dambaysaa ilaahay baan adduunka dusheeda ku caabudaynaa ku adeecaynaa ku raalli gelinaynaa wixii ilaahay noo qadarana raalli baan ku noqonaynaa insha allah dhahada waxaa keliya mashaakilka adduunyada maanta ka dhacaaya mashaakilka adduunyada ka dhici jiray mashaakilka adduunyada ka dhici doona xalku waa sunnihii nebigeenna moxamed calayhi salaatu wassalaam maanta zamankan aan joogno dad aan islaamnimada xataa aan loo malaynayn inay islaamayaan qaarkood waxay ku islaamayaan xadiidkii nebigeennu uu yidhi haddaad maqashaan meesha taacuun baa ka dhacayna ha gelina meelaad joogtaan hadduu taacuun ka dhacana buu nebigu yidhi ha ka bixina dadkii zamankan culumta maadiga yaqaana waxay leeyihiin 1400 sano ka hor ma nebi maxamed hadalkuu ku hadlay ayuu maanta caalamka ku dhaqmaya oo ku camal falaya mutacalimiintii yurub ugu aqoonta badnaa axaadiista nebigeenna markii loo sheegay bay ku islaameen
xanuunkan maanta adduunka lagu sheegayo ilaahay hay naga ilaaliyo amiin dhahada insha Allah dalkeena ilaahay noo keeni maayo insha Allah dhahada insha Allah dhahada wala reejibuuti ay la soo hadlayso muqdisho ka warano waxa ay muqdisho 30 sano imtixaan ku soo jireeno imtixaankan maanta adduunyada ka dhacaya insha Allah ilaahay iyaga ka ilaalin insha Allah dhahada muslimiinta oo dhan Allah ka ilaaliyo amiin dhahada wa caalamka oo dhan Allah ka qaado amiin dhahada laana waa balaayo haday timaado cid walba way saameyn kartaa Allah inaga ilaaliyo halkan soconay marka xukun القضاء والقدر وهلك مسلم يقال كوكلا وإعدام مسلم كواحد لدونا يا وحي إلهي كيني رالي ما كنا قضاء أذو قدرك إلهي آمنسن ووحي إلهي كوكينا كرا ليا هذا الدين تين وحي قبتا قفك بني آدم كوين والله ماذا احتياط وكان النبي قال إنه شيء إليه meesha taacun baa ka dhacay hadaad maqashaan hagelina meesha joogtaan haduu taacun ka dhacan ha ka soo bixina buu rasuulku yiri mutaalimiintii reer Yurub qaarkood xadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam ay ku islaamayaan ay leeyihiin 1400 sano ka hor ninka hadallada ku hadlayay ee maanta xadiisii uu 1400 sano ka hor uu sheegay caalamku u arkay xalka kaliya ee xanuunka maanta la sheegay lagaga badbaadi karo والله وحيد هذا النقاس النبي بوهاي بشر عادي ما هين أشهد أن محمدا هل قبل له السلام يا مانتا فرح الكبا للي فرها مسكبا قمر والله هذا دتك وشيغ يا وزارتها عافماتك لكن النبي محمد عليه الصلاة والسلام صحابتي سوحوا كيري هبينك مرقى هردودا كسو كعدان وعوه الرياض قبطان هنقضى قعمين نقضب رسولك يري وهي حالي تولي قعدينو ميلي بريدة كما ورقبتاني من صحابة اللي فرديو مسلمين تكمدها أي قلبك كيري هذا النبي هو اسكيريون من با كور قبين قاعدين ماشي حالي بريدي لكن هذا ما ينكرين عربك كما ينكرين لكن قلبك أيو يري من با كور قبين ماشي قاعدين حالي بريدي هبينكي مركو سيحدي واقي مركو بريانيكو قيلي على الارك قيلي آيا وعباد آيا ولا دول تغي وحلو يمد اسقو غعان تيسي دبرك انت كولا جرا تيسي مركاس laga soo jiiday markaas uu wala layaal hadaad maqashaan nabi maxamed baa sida yiri samicna wa ata'na dhahada bari nabigu wuxuu sheegay waa run weeyaan hada caalamka waxa uu leeyahay gacmaha dhaqda oo cadayda oo wajiga dhaqda oo biyo ku istinjooda oo nadaafada ilaaliya nabigeena maxamed alayhi salatu wasalaam waxa soo dhanba nabigu waxa uu nooga dhigay inaga waxa uu nooga dhigay shariicad buu nooga dhigay hadaad cuntada cunaysaan waxa sunnah in gacmaha biyo kor ka yimid lagu dhaqo hadaad cunto cunaysid waxa hadigi nabigeena kamida in saddexda farood lagu cuno hadaad saddexda kareyna shanta ku cun markaa buu nabigu yiri gacanta markaad cuntada ku cuntaan sida uga leefleef buu nabigu yiri uga leefleef معايا لجلك بن آدم الدفاع با إلهي قال الدفاع حنو والبكاء إلى لنا بيه باتكم مردتي والدفاع باتك هالإساء دريرك جلك كسو بحري والدفاع ويان بسنك هذو قبتي بسنك نبا الدفاع وعنتدي جرمسك كلا ينايا عنتدي ويلك هذو حكو عنيسو أقل هذا هبينك مركات سيحان يساو ويلشينا جنبيه بو نبي يري أما ماركتان دبولا وحسارة هذا هذو حاسارتان ويدان بو نبي يري قري يرسوق هذا مرة قل يرعود صار ابو رسولك وصلنا اقل با النبي قال له وش شيء ري مدينه اقل كيبا كو غبتا لا يدي وعود هبينكي مركات سيحانسان دبكاسي وعدوغي نيه اسك دميه ابو رسولك يدي وهدي نبينا عليه الصلاه والسلام نولش النبي محمد نولا يميداي او دن وا نولل اديغا كو ilaalinaysa caafimaadkaaga ilaalinaysa diintaada ilaalinaysa waxa uu nabigu noo jiday hatta marka la jiifsanayo dhinaca midigii loo jiifto soo sadama Aisha radiyallahu anha wa titri nabigu gacanta midig buu dhinaca saari jiray dana ducada buu akhrisan jiray Allahumma qini adabaka yawma tab'athu ibadaka dhakhtarado dhan waxa ay leeyihiin qalbiga bini aadamka wadnuhu xagga bidix buu ku yaalaa ha u seexanine xagga midig u seexda xagga midig qofka u seexda caafimaadkiisa qofkaas rajo fiican buu leeyahay
hadday cilmigooga aalaadkan maanta ay samaysteen ayay ku arkayaan walaakiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam cilmi alwaxyi ayuu nebigu noogu sheegayaa in habeenkii marka la jiibsanayna xagga midigta loo jiibsado markuu hurdada ka soo kacana waxa u horreeyuu nebigu qaadi jiray waa maxay waa cadaygiisa cadaygu nebigu sidaa u qabsan jiray xataa maalintuu dhimanayey caaisha u dhiibay cadaygii uhi ii jilci buu ka yidhi afkana ii geli buu ka yidhi cadaygu muxuu laynayaa jeermiska jirhkaaga geli lahaa ama ka soo bixi lahaa buu laynayaa diin dhammaystiran ayaa ilaahay noo soo dejiyey inaan diinteennaa qaadanno ku camal falno oon barannoon ummaddeenna barnoon ka shaqayno taasuunba laynooga baahan yahay bas insha allah dhahda soo diyaar uma nihin inuu diinta barto uu diinta ku camal falo uu diinta ummadda gaadhsiiya ayaa u diyaara saddexdaas dembigeenna allaha dhaaf dembiga waalidiinteenna allaha dhaaf diinta allah inoo macaaneeyo maralkeenna allaha shaafiyo mawtaadkeenna allah u naxariisto amni iimaanka allah inoo ziyaadiyo muslimiinta meelay joogaanba ciriiriga allaha ka qaado colaaddana allah inaga rafaco xanuunnada la sheegayna allah inaga ilaaliyo dadku ku dhacayna allaha ka caafiyo dadka u dhintee muslimnimada ku dhintana allaha u naxariisto gaaladana ilaaha waa addoommahaagii waa ducafaa waa masaakiine intii hidaayadda aad ugu tala gasheen ilaahu soo hadee wixii sharrana sharkiisa ilaahu naga qabo sala allahu calaa sayidina moxamed